waxaan mawduuceena kaga hadlaynaa baaqna ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo askariga kale ee kursiga la haysta maxamed kaahin axmed. waxaan ka codsanaynaa inay xorriyadda dib ugu soo celiyaan gabadha saxafiyadda ah ee lagu magacaabo bushaare cali baante. bushaare muddo fara badan waxay ku xiran tahay marka dhowr bilood 2 bilooda magaalada hargeysa. labadaa korneyl mana jirto cid maxkamad hortaagtay oo ku soo odeysay kiis. hooyada dhashay bushaare cali baante waxay baaq u dirtay horaan ugu dirtay baaq madaxweynaha somalilan iyadoo sheegtay inay u codeysay farteediina ay eeday. sidoo kale madax dhaqameedka degmada beledhiig hore waxay ugu direen iyaguna baaq muuse biixi cabdi inuu sii daayo gabadha saxafiyadda xorriyadda dib ugu soo celiyo. laakiin xukuumaddu somalilan ama muuse iyo kaahin maaha qaar qadariya codsiga bulshada. waa 2 korneyl. halkan maanta waxaan muuqaalkeenan kaga baaq uga dirayaa in si degdega xorriyaddeeda lagu soo celiyo bushaaro. waxaan sidoo kale halkan baaq uga diraya dhammaan dhalinyarada daahir faarax ama beesha reer daahir habar jeclo in ay gudo iyo dabadba u guuntadaan siday u soo dayn lahaayeen gabadha dhalinyarada ah, gabadha saxafiyadda ah. haddaanu daahir faarax nahnay maanaan ogolaan jirin in cadowgu ama dumarkayga jirdil iyo hablahayga loo geysto. laakiin dhalinyaradan dambe waxay daawanayaan muuqaallo dhaawacyo lagu soo gaarsiiyey bushaare cali baante. cali baante waa la yaqaanaa halkankii halkuu kaga jiray, halkuu gaadiidkiisii uu kaga jiray xilligii dalka loo dagaalamayey. dib u dhiska dalka cali baanto qaybuhu ka qaatay waa la garanayaa. laakiin ina kaahin iyo ina biixi uma qorqorsana tooda u cad. haddaa sii dayn weyda waxaa naga ballana inaan annaguna tallaabo kasta oo aan ka qaadi karno cid aan ka qaadno. mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa gabadha saxafiyadda ah inaad si degdega u sii dayso. waan islaamaya daawadayaashayada markasta ku xidhnaada youtube channelkaygan buurdhaab media. anigu ah cabdiraxmaan buurdhaab. sidoo kale qaybta tiktok waa nagala soo hadli kartaan, follow waana soo odhan kartaan. sidoo kale pagekayga oo buurdhaab mediana waa soo follow garayn kartaan. haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar channelka, siina share kare muuqaalka si dad badan u gaadho. waa mahadsantiin dhammaantiin.